kulan wacno wanaagsan daawadayaal idilhaantiin baa kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah maxaa ka soo kordhay weerarkii lagu qaaday xalay hotel Villa Rosa oo ku yaala agagaarka madaxtooyada Soomaaliya kulankii baarlamaanka labada aqal oo maanta la filayay in uu ka furmo magaalada Muqdisho oo dib loo dhigay sababo amni darteed Jubbaland oo magaalada Kismaayo kusoo bandhigtay cudud ciidan iyo diyaar garow xoogan oo waqti xaadirkan laga dareemayo Jubbaland ganacsato lagu laayay magaalada Gaalkacyo iyo xiisad adag oo halkaasi ka taagan wararka dibaddana waxaa kamid ah booliiska Shiinaha oo xiray wariyo ka tirsan BBC-da iyo sidoo kale hadalhayn ka dhalatay xariga wariyahaasi qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan wararkeena wahagaag daawadayaal waxaa mararka qaar rasaas teelteel ah laga maqlayaa gudaha hotelka Rais ee xindaabka madaxtooyada Soomaaliya halkaasi oo xalay fiidkii rag hubeysan ay ku qaadeen weerar ku bilowday qarax hotelka oo ay deganaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa badankood laga soo badbaadiyay sida ay markaasi wararka qaar sheegayaan hayeeshee waxaa wali la sheegayaa in gudaha hotelka ay ku jiraan rag hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaasi oo rasaas markaasi mararka qaar ridaya hareeraha hotel Rais ee la weeraray ayaa waxaa markaasi ku sugan ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda kuwaasi oo doonaya inay soo afjaraan weerarka lagu qaaday hotelkaasi lama ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa ka aamusan inay ka hadlaan weerarka waxaana aad u adag in la helo xogta rasmiga ah sida ay wax u socdaan oo weerarada hotelka ayaa markaasi ah mid aanan xogihiisa si rasmi ah loo heli karin iyo goobaha u dhow maadaama aagaasi ammaankooda aad loo ilaalinayo dhammaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa madaxtooyada ayaa waxaa la dhigay ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo diidaya in ay dhinaca madaxtooyada soo aadaan dadka iyo gaadiidka waxaana si guud markaasi magaalada Muqdisho wadooyinka soo gala gaar ahaan aan iraahdee wadooyinka markaasi gala madaxtooyada Soomaaliya ayaa aad loo xiray iyadoo dhaqdhaqaaqa wadooyinkaasna la xadiday dhanka kale guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigay kulankii wadajirka ah ee baarlamaanka labadiisa aqal kaasi oo la filayay in uu markaasi maanta ka dhaco xarunta Villa Hargeysa ee ku taala gudaha madaxtooyada Soomaaliya kulanka baarlamaanka labadiisa aqal ee baaqday ayaa ajandihiisu ahaa akhrinta koowaad ee miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2023 balse kulanka ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira qaraxa ama weerarka markaa lagu qaaday hotelkaasi oo la sheegay in sababo amni darteed la isugu imaan waayay kulankaasi inkastoo guddoonka baarlamaanka Soomaaliya uusan shaacin sababo markaasi intaasi dhaafsiisan oo la xiriira joojinta ama baaqashada kulanka haddana waxaa markaasi la rumaysan yahay inuu si weyn ula xiriiro weerarka lagu qaaday hotel Rais ee magaalada Muqdisho halkaasi oo wali ay rag hubeysan ka dagaalamayaan afayeenka booliiska Soomaaliya Gaashaanle Sidiiq Doodisho ayaa sheegay in hotelka laga soo badbaadiyay iraahdee dad shacab iyo mas'uuliyiin gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaan wali labaduba ka hadlin xilliga rasmiga ah ee kulanka uu qabsoomayo golaha wasiirada Soomaaliya ayaa bartamihii bishan ansixiyay $967 oo ah miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2023 iyagoo u gudbiyay baarlamaanka si ay uga doodaan kadibna ay u maalmariyaan dhanka kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta booqasho iyo salaan ugu tagay ciidamada qalabka sida ee loo diyaariyay howlgalka dhawaan ka bilaabanaya deegaanada Jubbaland madaxweynaha waxaa ku wehelinayay booqashada wasiirka difaaca dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka sareeya guuto Odawaa Yuusuf Raage oo Jubbaland u joogay maalmihii la soo dhaafay sidii dowladda federaalka iyo Jubbaland ay u bilaabi lahaayeen howlgallo midaysan oo ka dhan Al-Shabaab ugu horeyn madaxweynaha ayaa tilmaamay in ciidamada ay ka kooban yihiin noocyada kala duwan ee ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka isla markaana ay u diyaar yihiin xoreynta dalka
waxaa madaxweynaha uu intaasi ku daray in marka deegaanada la xoreeyo kadibna ay diyaar u yihiin hay-adihii la wareegi lahaa shaqada, gaar ahaan ciidamada booliiska iyo nabad sugidda, sidoo kalena la bilaabi doono sidii dadka deegaanka ay u soo dooran lahaayeen dadka u adeegaya. Madaxweynaha ayaa sheegay in al-shabaab lagu jabiyey dagaalka ka socda gobolada dalka, islamarkaana la israacin doono lagana xoreyn doono deegaanada Jubbaland oo halka howlgalka xooggiisa uu ka bilaabmi doono, isagoo uga digay dadka shacabka inay ku kadsoomaan dacaayadaha iyo wararka beenta ah, sida uu markaasi madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntii, madaxweynaha ayaa ku ammaanay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre sida ay uga go-an tahay nabad ku soo celinta dalka iyo ka saarista al-shabaab, taasi oo haddaba guulo la taaban karo laga gaaray oo gobollo badan iyo degmooyin badan iyo sidoo kale deegaano badan laga xoreeyey guud ahaan, sida uu markaasi madaxweynuhu sheegay. Dhanka kale, maleeshiyaad hubeysan ayaa rasaas ku furay goob ay dhalinyaro ku sugnaayeen oo ku taala meel aan sida uga fogeyn iskool lagu magacaabo Cumar Samatar ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, iyagoo intaasi kadib goobta isaga baxsaday. Rasaasta ay maleeshiyaadka fureen ayaa waxaa ku dhintay nin lagu magacaabi jiray Ayaanle Saciid Faarax oo ka mid ahaa dhalinyarada Gaalkacyo, halka 2 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Wararka aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in arrintan ay salka ku hayso iska hor imaad dhowaan magaalada Gaalkacyo dhinaca Puntland ku dhexmaray 2 maleeshiyo beeleed oo ku muransanaa dhul ku yaala halkaasi. Ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Puntland ayaa tagay halka uu weerarka ka dhacay, iyaga oo wada baaritaano la xiriira sida ay wax u dhaceen iyo sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dadkii weerarkaasi ka dambeeyay. Xiisada 2 maleeshiyo beeleed ayaa weli ka taagan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana socda dadaalo lagu dejinayo xaaladda iyo sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa ragga hubeysan ee dilalka ka geysanaya magaaladaasi Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Ugu dambeyntii, booliiska Shiinaha ayaa xiray wariyaha BBC-da ee Shanghai isaga oo ka waramaya mudaharaadyo ka dhan ah dowladda oo ka dhacay dalka Shiinaha. Wariyahan ayaa la xiray isaga oo soo tabinaya mudaharaadkii ugu weynaa ee ka dhacay magaalada. Waa arrin aad looga walaaco in mid ka mid ah suxufiyiinta sidan oo kale ah loo weeraray isaga oo gudanaya waajibaadkiisa, ayaa markaasi lagu yiri war ka soo baxay BBC-da. Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ninkan uusan soo bandhigin aqoonsigiisa saxaafadda. Muuqaallo si weyn loogu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya askar dhowr ah oo wariyaha inta ay gacmaha qabteen ku dhufanaya dhulka. BBC-da ayaa sheegtay in wariyaheeda ay booliiska garaaceen ka hor inta aysan katiinadayn oo ay katiinad gacanta ugu xirin, waxaana BBC-da ay markaasi sheegtay in ay uga baahan tahay dowladda Shiinaha in ay arrintaasi caddeyso iyo sababta wariyahaasi xuquuqdiisa loo ilaalin waayay looguna xadgudbay, oo ay sheegtay BBC-da in jirdil xoogan loo geystay ka hor inta aan la laba diblayn. Wagaag daawadayaal, inta ayaan kusoo afmeerayaa wararkayga aad daawanayseen. Intaan ku kulmayno warkan warkaysaga, nabadgelyo.